ninkii anu hoynay habeenkoo dhan buu wareegaa gaar buu naga hayaa aniga nin ilmaadeernay baa soconay isagii dhignay xanuunsanay reerkii gelinay carruurtiisa iyo isagiiba habeenkoo dhan buu gaar naga hayaa ninkan muxuu gaarkan dad badanna way ku qaxeen meesha ilaa anaguna ilaalinaya wala dili buu isleeyahay dabadeedna habeenkii oo dhan wuxuu soo jaad buu noo keenay soo jeedo isla cuno jaadkana war aroortaan cunanaaye waan iska seexaanaa baan idho aroortii isagoo noo karsamaya raashin yar iyo ciidan baa ka soo dhadhacay halkan galbeedku naga soo dhadhacay halkan gantaaligu uu leeyahay dhinaca gabriga kula noga baxayno iyo ciidan ka soo dhadhacay ninkii howlgelintaa wata ciidanka ciidanku waa ciidan isku jira oo koofiyad cas iyo noocyo badan isku jira haddii ay yimaadeen dadkii aan wada joogno way yaaceen qaladii baa lasoo baaray dibadda lana soo saaray ninkii howlgelintu way gartay haddana hay gartay wejigeyguu gartay yaalaan kusoo qaxo ninkan xanuunsanaya keenaa ku uri way gartay wejigeygii haddana way malayn waayo haybtaydii buu garan kari waayey mas-uul waadna raacaysaa waan waayahay isaga waxaan idhi ninkan uu xanuunsanaya de isaga waan reebay isaga dhowr iyo toban baan ku raacnay baabuurkii dad meelaha laga soo qabtaya oo u badan kolkaa waxaan u badnayn nan isaaq yaan u badnayn dadkii aan isaaq ahayn wixii kale way carareen soo carar ku ogani waxbay fahansan yihiin dadka waxbay ogyihiin laakiin hadi wax magaalada habeenkii kowdaan iska lugeyn jiray meeshan doonaan fadhiisan jiray saaqnimaa lagu dili iyo gadabursinimaa lagu dili midna ma aaminsanen anugu dabeedna baabuur baa la soo saareen urdu markii horeysaba saacadii bay naga furteen ninkan wada soconay baa saacaddii ku yar dhegayo war saacadda iska fur baan sii nimanka saacadda sii hoostaan kusoo wareegno wadadan laga soo galo dariiq laga soo galo Djibouti yalla soo mariyay balaga ina aamin leena markaan hoostiisa la simanahay yaradaas nagu bilaabantay baabuurtan laga daadajiyay beer dhulka la saaray kolba askari baa nagu soo horeeyay xabistaan ilaalinaya anigu xabistaan ilaalinaya kii saaxiibkii la soo dilaaba annagu nagu soo noqday aboosooyinkan maxaa loo hayaa kuwana nala dagaalamaya kuwana mayna isku mid ahayn nin dameer wata yaba la toogtay magaalo ka soo baxo dameer wata yaba toogteenba wanaga maxaad ku tooganaysaa idinkana waan tooganaynaa maxaad noo tooganaysaa kuwana madaan isaaquna hayn soo kuwana laynaya ma ayo 3 jeer bayna safeen mar saddexaad kan ku waryaadeen war ma nihin anagu de haddii aad qolo doonaysaan qoladaan doonaysaan ma nihin dee maxamed inaad dagaalsan nimanka dagaalama daba ku waara saas tani soo ridaya amba qoryaana si aan iska celina anagu ama naga celiya dee rasaas wata anagu naag marmaraysa qoladaan doonaysaan ma yihin anagu dad qolo dee raadsanaysaan nin koofiyad cas ahaa oon daris ahayn waqti ومحيول ديجري وإنه عمره يعني عبد واقع يوم بهالكاي قارك شيء وسوق عبد الله ديرا ومبولي وانا كدا يرجع ومبولي نكن كورنيل كان سوق قاضينا وقول داوع مركي بو لا قاضي دلاي بالورنجري ولا قاضي مركي بشغل رصاص قبصتين تن وروى عبد الله دير كداي وار انا قر ولا انا كداي سيدي بقراه انه دحday qorxadii baan soo noqonay waan soo wareegnay aan buuran soo wareegnay halkii gantaarihii baan ka soo galnay baabuur yaro jiibor baabuur weyn oo rasaas wada ayaa xagga wadadaasna ka yimid oo show ciidankii loo hayay deganayeen soo direen rasaasta iyo ay baabuurkii jiifka haddii maqribkii dhacay kaarayaal lama wadanaa unba baabuurkii rasaasta sida galay ciid yar
عيد بملهين ماشو لكن وانا سري إلهي بوهني باجيني إلا طبعا كي بنكون جدنا هالكي رصاصتن كفقع بابورك كدجية على الريحي رصاصتي بنو كدجيني نكال ما ذلك هين بايدي أم بحصنه والبحصن إنه حصل رصاصنا وإنه كلمي هدي ما أنت اللي ندلي واعي إلهي ونبي قليل مرينا ياهي هالكي اللي نجيني يوم بالي نجينا ما قور طبعا كي أنقلنا هالكي تلسك جودي هالكا ملكو في أسد جريد وتلسك جودي ضد الشيء بريقة ما يشكر دستني مك عيدك تانجيد دقيقين واي يلا نجيه واي هالكي ما نلقو حريه نين بربرسون ما نقول تقني يمستاد هيدا مركات تريدي دولة تنبرهين واي حبايك waxaan cunaa noogu dambeeyay kolka dee arintaadu adag tahay xaaladaadu gaajo waxaan ma jiraan xaaladaadu gaajadu naftii baa batay waa markaad wax kala dooranayso ee gaajada dareenkeedu yimaadaa markaad xagga dhaska u dhowdahay dhimashaad u dhowdahay gaajo ma jirto waxa la wixii resource ugu jira jidhkaaga waa يسكرينسا كيتسنس يلا استعمالسا أرورتي هدي أن فرنا داقتي يعني نني قرتي نكيبان ويسي بيا نوك ويسي روبيو نوك ويسي بان نمبر دبق وسي نمبر هنقول دبق نكيبا عرديو قردي مامولك وسوق شيء مركا مامولك قبلك وسوق لثلاثة جود أيوه الله دورينك عبد الله لا أكاديمية كشقيني هالكن جوجا أنكا كولي مدي ولا يقصاري نكاسنين أن مالين كيف ذيبوها رجعيني كيف ذيبوها يو ويقفتي هذا كل نوع كريدي كل نوع كريدي كل كرر ويقفتي تبينا مركا هي ورزان ورقولان كريس كسوداي واسداسه ninkii aan ugu tagnay meesha afka burbursanaa ayaa nagu yiri aniga goor dambe waxa la keenay state barkii state markii la soo galiyay dadkii halkan ku jiray waa laga saaray buuri ninka ducaagan aan leeyaaba saaray buuri halkan lagu toogtay buuri halkan maartay ka soo baxan maartay dadka dharka xidhan tusbaxiisa saacadaas tee xabaaraha hadii jeer qoom jiray dadku soo saari jiray ودتكي وين dadkaas wax isku jiraan wixii la soo qabanayay la leeynayay iyo dadkii saraakiil xigeenada ahaa ee laga soo ururiyay guutooyinka iyo ururada ya ciidamada saaqa u badnaa ciidamada ka tirsan yes waxa iyaga saaqnima loo dilay booliska iyo daraawiishta baan cid lagala bixin laakiin militariga waa cid aad garanaysa ma ku jirto مرقل الله سينو قرني يا خمدة هو سيدي هاي بقى خمدة إيرك لا سوق هذا يا خمدة إلى غير ثقة خمدة الله وهي سراكيل حمر بايس قدرين وهي سراكيل حجينها جنب كسيين بوليسكا عيدا كدراويشتا وهذا بوليس دراويشتا عايزين علي كثير لو نجري وهذا في عارها نقرأ نبى ما لا يقبض هو كدور الملترية هل قفل جماعة قبضن يا ليني تتكمل يا تتكي يا ليني يا وحلا يترس جود بليني على جنا أنا أمر فوق بيدي الملتري مورجان بانا ده أمر كيس لا أقول ليني تتك سيدي واحد ما أنا ينتظرني تفهم ده ما أنا ينتظر إن مسكحة ده بدي شو استعمال شاكف في عنيد إن تلاقيه قسم مرة سيد لا يسوى وتصير حوجين ساعة تذكر ما واحد مرة ساعتين بومبا تريدها مدافع ذن كلا إيه واحد كلا الجريد طيورها هي قرنا طيورها ده واحد لا استعمال ساوث أفريقيا بوضيبة واي كل بقى لقى سعر كانوا واي نمك يرد اللي ذيك سنة يا بشيء شون مرها آخر كذي بقى كان ديار الله شون جولاي انتصر ما ديار الله جولاي هرجيسة مركب خصوصا هرجيسة ولا كان ما نسي من اللي يصوب هاي halkan imika baarlamaanku yahay waa tan dib lagu soo celiyay halkan baarlamaanku yahay golaha wakiilada oo dhisnaan jirtay shubahan jirtay halkaas madax badan halka fadhida la keenay way marka waxaan ugu nimid halkan
taliskii guud ee xeelaa lasoo baabiiyo ninkii uu gadh weynaana waa lasoo qabtayo anaa gadh weyn lahaa masan ninkan idka sheekeensa waa aniga waa lasoo qabtay ma jire marka halkii baan la keenay idin madaxdii officialskii isduuyaashii halka wada jooga halkaas madaxfiidu nagu soo dhacaysaa daawal ma naga dhacaysaa idin markii dambe qolo maamulka degmadu la shaqeyn jiray iyo waan soo halka guuloodayaashu deganaayeen النور هو سأقلدي سأكتي سعيدة إما كان بصصك تجيهين سكاشتات بصصك برتاس عن لباب بالولد سحنني لين عكر الله بحبك يقول ليش أنا لا من النبح ما كمان كان بحيسو شاب شو ترس بيجرون عن بنك كنا الكا طريقة جبت اللي هو بيجريها جبت اللي يجري كاسو توجنيها والله ما كان قاعد انت ماشي ما لنا مدفع نوصل ونين اللي قدري maalina nin la toogtay halka dhafoorka kaga dhacday markay urdayay markaas ka baxnay meydkiisi kaaraan soo kaxaysanay san kaarihii halka intuu saa kaari u dhignay halka geedka bangiga xagga ka soo xiga dariiqa saa u jeedinay oo kaarihii ku dhifanay halkii laga noo soo tooganayay in meydkii qaadnay maalintaas ka guur hargeysa kaliya baan tagnay markaa xalu soo joogin bay wadaashu yiraahdaan waxba way soo joogin waxaan soo joogeen waxaan soo joognay iyadoo raggii nala joogay in wada shaqaynanay maamulka degmada Hargeysa ahaa in isaqnimo loo qaado duhur cad Yusuf Neero loo oran jiray in Abdullahi loo oran jiray min galana jooga ana ay ku qaaday dibidaan ka daba tagno wariyada naaneys baa inagu dhiciyay ragga dambaha la ina raaciyo ama ka daba tagno morga maanta soo direen nimankan la soo qaado la laayo nimankii hebel iyo hebel waa ducaale ganaan soo qaaday la soo daayay hadda la soo daayo sidii war nooga dir maxuu xamar hadaba nimankan xamar dir ya ifante bal nimankan la joogay anaga maamulka hayay waxa weeye hal anaga inaga warramayaano halkan ay ka war maxay ku warramayba telefoonada nima jiraan waxba la kala qarsanaya maxba deema telefoonada ma jiraan muxuu ku warramay qof muxuu ku warramay warqadaha diraano way ku leeyihiin warqadaha ma diraano ay la joogaanay annaga bas u hesheynay ya haga warqadaha u dirayaan wasa saasahay way sheekum bay dadka ku tahay goob joog dadka ay baxaso I witness waxa la dhahaa korod borba tagtay waxaan tagay boorama waxaan tagay muddo waxaan tagay waan sii joogay oo September qiyaasta October baan tagay maraya October baan tagay marka Hargeysa waa lagu kala guuray Hargeysa markaa laga saaray xoogii santo laga saaray laakiin way duunsanta magaalada asal laga saaray xoogii magaalada waxa ku haray dad qaxoonti iyo dad aan dadkeedii ahayn iyo qaxootigina waa ku qaxay waxba kuma hadin qaxootigina way qaxayaan inta badan oo xariyoogii ku eekaayeen marka booran hadlo booran waxaan raacay odayaalkan laga abaabulay baan raacay way korneelkii Saciid Usmaan iyo qolyo caynkaasaan odayaalkan ishi boorima deganaayay yaa la abaabulo kolkaa waxaa generaal ahaa nin ina warsamo la oran jiray general way ninkaasaa noo yeeray way wuxuu yidhi ayaan waxayd bankii wajaalay halkii mashruuca loo badanna laga qaday dadkii halkaa deganaayay ee bursiga dad badanna dhinteen iyo haydo waxay yidhahdeen bursigii waxna maxaaradu u galay waxna waa la jebiyey waxna uu isdhiibay marka uu noo yeedho wuxuu leeyahay gurmadiyo waxa la galo dhulkii tala la tago dadkii la waasaan ku yidhi raartan eriyanana waxa tirada ciidanka eriyaday raarta ka bursiga la jebiyana hadda bursiga wax iska celi waayey oo isaaq walaayay markaan anagu wariyaga jebinada ciidanka jebiyey miya dadka ama dawladnimo ku difaaca ama dadku iyaga danahooda garanaya amba islaayaan amba heshiiyaan iskaga dhex baxa ama shacbiga dawladnimo ku difaaca ya marka weeyaan the divide and rule ma shaqeynayso qayb xukun baa lagu shaqeynayo markii dagaalada la bilaabay xitaa reeraha waa la isku dirayo habeen bar reer baa la ururin jiray sanadii markii la geeyay ku dilay jibaab qurba ku dilay marka si loo abuuro inaguna siyaasiyan de waan iska maan gaabnay waqtiga dadkeenu local issues buu ahaa
مرة ما عمل كجراو كاستعمالي كراها وآلة كاسر هي يوكينيا معلومات كاسر هي يوكينيا دبنا مركا كل كان تجاهلكي أرميه أنا سوري سنة أذكر سوري سنة أنا ما بسوي نقوم به markaad aragtay wixii maxaa dhacay ما سوي نقوم به arigii banka maxaad ku ogaatay بنكي ده دجال عادي ما دعايه حولها ولا قاعد ده waay شوف سنة ما قاعد حولها حولوه بدنا ويا الله إلا قاعدوا waay يا كده عادي ماشي دوري لا عطني نقول انت way ku dhintay يقول انتين ولا الواصي إذا مركا هالكيبان قايمها شركي كون جدنا ولا جاي يمدي وقت قاس وقت قاي جورت سدن ستوري جينا سمايس من دون طيبنا عدروس كل شيء دونا سكو وقت مو ويان qoladaas xaggaa ku كل shiray شيء قرآن قلنا كون جد بكل شيء صار marka dawlad la'aan baa soo muuqatay ها وهو واحد صوص صاري قلنا الحوجي أصلا با ماشي كبحي مقالدي مركي أي دي حوجي سوق على جبان دي وحي واحد نقدين واحد جبي يواحد عوامي يواحد انتبه نقدين hanti waxay haystaan daway baabaday dadka muusura la sitagay qaxootigii in la tushaday musabiixi korneelka nimika korneel hadda marka musabiixi sharaxa nimika ayaa sheekh Ahmed Sheekh Nuux u tagay law naxariistay anagoo saas ku garab fadhina oo xus Sheekh Ibrahim sameeyna uu ka sheegay Sheekh Ahmed uu yimid buuri wuxuu waxaan haynaa ma jirto Sheekh Ahmedow ragna ma hayno adduunyana ma hayno wixii la yeelay isweydiiyo odayaashiina idin markaas Sheekh Ibrahim tagay buuri walaasana israacnay buuri Abdi Waraabaan u tagnay buuri walaasana sii soconnay ilaa barigii abaabulkii bay galeen markaa baahada ay iskugu yeedheen odayaasha adroos baa lagu shiray markaasaa la qaybsaday raggii iyo raashinkiiba raashinkii wax laga qaaday garaamkii wuxuu la siinayay raggiina sida magta loo bixiya loo qaybsaday iyo qurigiiba talaab kharo inta ka talaab kharo baa sii qaybsanaya according to the paying group sida magwadaagta loo bixiya magta cilmiga yaqaanay bay ku qaybiyeen goorta ay talada gacanta odayaasha gashay waa 88 October wixii ka dambeeyay ilaa inta dalka la soo galay ururkii asna wuxuu ku aruursaday October 1988kii qaladii SLM iyo waxa ay la timid iyo waxeedii oo isla burburino tii Maxamed Siyaad Barre raaceen odayaasha la wareegay wixii ka dambeeyna odayaasha la wareegay yaa dalka la qabsaday halka siyaasadun bay haayeen odayaashani ma ururka SLM siyaasiyan buu shay gareynay iyo wixii dadku ay qabtaan ka turjumo siyaasiyan caalamka فهمت كورنيلادينا waxay isku bedeleen in odayaashu ciidanka ay u keenaan in ay dagaal geliyaan فهمت taladii maalintaas ay gacanta odayaasha gashay markaasa siyaasi taana waxay gashay kama dhex bixin laakiin oday dagaalkii ilaa October ta markaad sheegayso October dawli waxa la yiraahdaa mar kasta oo ay dawladnimadu naaqsanto awoodda odaga kor u kacda mar kasta oo ay awoodda odagu naaqsantana dawladnimada xoogaysata imika sinaarada haysataa dad ku qiyaas the rise of elders comes when government diminishes markay dawladnimadu hoos u dhacdo odaygii dhaqanka la wareegay xoogaysanaya nin baa shaqo helay markay dawladnimadu xoog leedahayna odaga dhaqanku uu naaqusmayaa oo supporter to the government buu noqonayaa sax markii maamulkii baa jilcay odayaashaas soo baxay odayaashaas galbeedku markaas ay sabaableen markaas ay shireen markaas ay taakuladii jabhadaha iyo arrinka iyaguna gacanta ku qabteen ma erin de wixii dhex joogo waxay yiraahdeen rasaastaynu ka helaynaay waxba erimayno way dawladdan islaynana de walaaliheen bay islaynano kuwan haddaan sii erino de cadaawadda nagu sii kordhayaan marka rasaasta yar xutaan ka helnoon ka iibsanay iska joogaan marka cishada wax la iska celiyana ciidankii baa wax iska celiyay
شذا كان يقول مساج شوي أنا أقول كنت أصل نقول نفل عارف isku itaal baad noqoteen isku itaal baan markaa tagteen odayaal baan ku naabawshay odayaashii haa shirkaas ka yimaadeen shirkaaba laga soo galay markaa laga yimaaday markaa ma dawladii baad gacan saar la yeelatay oo nimanka oo tooleysa bisay idinka gooni u tashaday dawladdu kama madnayn suuroobi weydaba inay leadership samaystaan ayuu la qaybiyey anaguna waan ku guuldaraysanay laakiin dhalinyar ahaan anagu aniga rag ka mid yaalaan xasida galbeed iyo nin xasan aad la ilaahay rag wada qaasim sheekh yuusuf iyo macdan taanjir dhintay isaguna abdullah xaj badan loo jiro dhintay isaguna imikaaniya xasan aad baaba ka nool xamaal iyo rag aynkaas oo guriga inta la joogaysa in isku abaabulno kolka mediator anana ninka maamulka degmada ka shaqeynayay DC ka ahaa inuu kala sameeyay marka iyadoo soo tafaahum xun jiraan anu isfahansiiyay soo dhaweeyay dibadna in magaalada aanay ka dhicin rabshado dadkii deganaa magaraasay iskuulada ku soo qaxayna waan ka saarnaa meelaan dejinay haduu mediate gareynay marka dad badan oo halka qaxay baa boormo qaxay dabcan dadkii for example aan reer boormo u dhalan maxaa ku dhacay dadka aanu dhalanay inta badan ku qaxay waxa ay daaroodka ahaayeen in saaqina way tagtay bilowgii intii saaqay Djibouti xagga sal loo gudbiyeen wixii la xidhayna waa laga sii daayay jeerka wadayaasha reebur waxaan in saaqo meesha lagu dili karaa in walba abtigiya ma jira ma dhici kartaba halkan lagu taaban karo marka way soo saareen dibadna waxay geeyeen ilaa jigjiga iyo gaarsiiyeen kuwa xitaa dagaaladii kolka meelaha xariirada meel lagu soo qabtay dhiig loo shubay lagu ka go'aan oo gaangiri qaado la daweeyo ilaa marka ninkii boor uu tagaa daweey kuwa banka garaal laga soo qabtay oo la talaabiyay wixii nool lagu qabto ma lama dilayn marka laga reebo nin dilay lagu dilay marka laga reebo wax nool lagu qabtay way dhacaysaa kulay wax nool lagu qabtay oo aagaagada buursi lagu dilay ma jiro oo nool lagu qabtay marka Abdullaahi Ibrahim Habano طبعا waxaad ka sheekeyn karto maalmo sanada laga sheekeyn karo weeyaan ma wax maalmo ku dhamaanaya wax weyn ka soo maray waxaan jeclaan lahaa marka dadka ina daawanaya ama ina dhageysanaya yan doonaya inay fahmaan oo ay ka fahmaan dhacdooyinkii taariikheed ee ka dhacay arladan markaa cid goobjoog ka ahayd oo sida maartay ay badta adigoo kale oo mutacallim oo garanaya ma garanayso aan qof suuqa caadifada ama ku hadli kara aan ahayn dawladnimadii markaa ka dhaxaysay Soomaalida ee xukuumaysa Hargeysa wadan gacanta la soo tigay boorama inta joogtana maamul daciif oo ay kala noqotay وطن odayaashii xaggan qoladii asranta ay kala wareegeen xilkii inta badan iyagu ay gacanta ku dhigeen xagaana wadinka abaabulay odayaali wax dawladii calanka lahayd ee Soomaaliya loo dhigay ee calankiisa degeesa halkay ugu dambeysay ku aragtay meel ku aragtay adiga wallahi dawladii wax weeyaan meesha dawladii horta jabka Soomaalidu wuxuu korkii Itoobiya leena soo jabisay jabka nagu bilowday jabku ma hayna tobankii markuu siyad barka arrin maaha kolkii muxuu ahay dagaalada nagu dhaceen maaha oo consequences ki jabkii Itoobiya naga soo dhacay umba halkan yimiday isbedelinu yimaadahay dawladdu isbedesho yatiiba iman weyday dadna kacdoon saas ku abuurmeen marka dawladdu shacbigan ay hay'ad marada shacbigii ay dawladdu ka tirsan islaynayo uu qaybsamay mas'uuliyiintii wixii siyaasiyiin ahana ay kala raaceen marka dawladnimada jirta waatay jirisa dawladnimadii ma aha wax shay meel yaale inta shacbigan ay ka kooban tahay waa adiga wadaan reer ka noqono kala raacno wana horta kala tagnay inagu wana Abdullah Bakr bana Jibril wana Abdullah Bakr bana sa dawladnimada meesha ka baxaysa ama aan kala dhaqaaqno laakiin haddaan systemkan ku heshiinay wada xoojino wadan bay u tahay adigu noloshaadii bay ku jirtaa in sant yeesho ana way ku jirtaa taydii marka an agreed items and issues and points lagu heshiiyay
in la ilaaliya lagu wada joogayaa marka waxaan leeyahay anigu macnuhu waxa weeyaan haddaynu qabiil baad baabiyey soomaali dowladnimadeedii qabiil cadaadiye baa baabiyey qabiil bay ku baabaday haddaynu inagu maanta qabiil ina haystaa ma jiro inaga wada joognaa haddayna inagu waxayna nidaamsan oo inaan hagaajisan intaynan taawgel waxay noo mari waxaan ku noqon doonaa taas yani inta yar waxaan leeyahay ujeedadaydu halkaasi scenaariyada maalintaas Soomaali kala kaxaysa taagnayd ayaa sababtay in la kala tago Soomaali kala tagto sababto waa qabiil marka qabiilka aataarkiisu waa sida marka reconstruction kii iyo sidii dibudhiska u bilownay iyo sidii nabadeyntaan u bilownay iyo tallaabooyinkii la qaaday iyo tallaabooyinkii markii iska horimaadku beeshan dhexe ka dhacay ay soo farageliyeen beelaha kale oo arrin ay koonfurtu weyday casharadeenna dambe iyo sheekooyinkeena dambe aynu ka bilaabi doonaa halkaa ka bilaabi doonaa halkaa ay noogu joogto maanta aad iyo aad baad mahadsantahay ducaale waan ka sheekeyn doonaa wax badan oo dadka faa'iido noqon doona inuu sii dayn doonaa kaasi waxa uu ahaa Cabdilaahi Ibraahim Habane oo sidaan horeba idinku ballan qaaday aan ka duubi doono sheekooyin badan oo laga yaabo qaarkii inaydan rumaysnayn in sida wax loo sheegayo ay wax u dhaceen qaybta labaad iyo qayb saddexaad iyo qayb afraadba haddii uu eebaydno barnaamijyada soo socda ee toddobaadyada fooda inagu soo haya ayaanu si xidhiidha idinkala socodsiin doonaa Home Cable TV iyo barnaamijka xusuus reeb aniga iyo farsamayaqaankayga Daawus iyo wasiirka Cabdilaahi inkastoo weli wasiir ahaanan u waraysanin intaas ayaanu idinkaga tegaynaa